anigu markaan joogo wasiir ahaa waxaan usoo helay 4 milyan oo dollar hadda markhaantigiina wuu joogaa waxa weeye waa nin Soomaali oo ka shaqeeya African Development Bank nin reer awdal weeye weli wuu joogaa 4 milyan oo dollar intaan arrintiiba bilaaban ayaa horta 2 milyan meeshii ka baxay ma ogtay si kaleeto ayaa loo duway gacan kale gashay markaan ka tagay anigu muddo laba sanadood ku dhawaad markaan ka tagay ayaan niman guddiga ku jira oo reer maakhir waan la hadlo waxaan ku waraadha 2 milyan baa ku haray meeshii bal waxaad yeelaysaan waxa lagu bilaabo ku fara adayga oo yaan laga saarin meeshii dariiqa si uu u dhamaado ninka hadda madaxweyne ku magacaaban madaxweynaha Puntland oo loo yaqaano lafagure iyo lafatuur anigu magaciisa runtii ma aqaan madaxweyne ku-xigeenka dowladda jeeda madaxweyne ku-xigeenka lugator miyaa lugator kaasoo nin aad of dheer weeye maxamed cadiid dowladda jeeda cadiid miyaa ninkaas saas oo hadlay marka nimanka xanuun lahaa war idinku horta xagaad ku ogteen tuulooyinka ka timaadeen ya ma Puntland baa ma Khaatuma ya bal horta halkaa horta soo saxa inteedana reer maakhir aflagaadeen xanuun lahaa dadka ay ka soo jeedaanna in nimanka la taliyaan ay yiraahdaan war haddii wax lagu sheego waxna waa la gartaa بسم الله الرحمن الرحيم كل wanaagsan ku soo dhawaada wareysigan gaarka waxa marti igu mudane Cali Faatax oo ah wasiirkii hore ee qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee dowlad goboleedka Puntland waa aqoonyahan Soomaaliyeed isla markaasina bal waxaan jeclahay inaan ka wareysto umuraha ka taagan gobolada Maakhir State ama gobolada Sanaag aan idhaahdo oo balwaayadii ugu dambeeyay ay arrimo kala duwan ka jireen iyo guud ahaanba arrimaha Soomaaliya ayaan jeclahay inaan wasiirka wax badan ka weydiiyo مدن علي فتحات بقول فرحسنا هاي ورئيسي أنا أدقاق بشيء هو يجانا يوقع بشيء سودو وهرين بلنتين إن سيجلين أرمها كتاعن جودها الصومالية علي فتح نأسبر واكو نور عاد ما حسنت هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسؤالنا كسوي وحن سلام يا مركور أديك نورهان iyo bahda SSTV salaam Allah marka Cali Faatax waxa weeye waa oday Soomaaliyeed ku soo barbaaray gobolada Sanaag oo loo yaqaan Maakhir hadda gobolada waxay ka kooban yihiin Sanaag iyo Highland iyo waxa soo raaco bari galbeedka bari iyo حتى إلى سولور جاردن مركا هل كان كسب برباري مقالة الأسقان كل شيء هل كان كسب قاطي تعلينتي هوس محمد كل هذا حمر مركي دم حمر بعيني أيضا أنا كسب دم تعلينتي هوس مقارنة سام هذا مريكن بان كبعد عادي وحن قاطي هل كان تعلينتي bachelor degree تعلينتي سري bachelor degree أنا قاطي political economy iyo urban and regional planning kabacdina waxaan u gudbay master's degree University Pittsburgh waxaan ku qaatay halkaas master's degree management maxaan ku leeyahay urban maxaan ku leeyahay public affairs management kabacdi dawlad waxaan ka shaqeyn jiray dawladda maxaan ku leeyahay Mareykanka Washington DC عاصمة أمريكا مدفر بدن أنت مركز عن شغلين وحن قاطي وحلي هذا public محنكو هذا management boss وحير هذا boss graduate أو management أيان قاطي سيد لو منزيريو مقالو أما region أما ودن بس سيد لو منزيريو مقالو مركز هرتا تعليم وعطا sidaan sheegay waxaan ka soo shaqeeyay muddo fara badan Washington DC waxaan manage gareyn jiray programmo kala jaada background iyo planning iyo management muddo aad fara badan oo ayaan manage garay halka joogay ka shaqeynayay award badan baan ku helay maartay markaan Mareykan joogay markaa runtii
kuma ekayn shaqada dowladda keliya waxaan aada u danayn jiray danaha soomaalida waxbaan ka qori jiray waxaa jirtay organisation ay isugu yimaadeen dadka loo yaqaano intellectualska ama aqoon-yahanada soomaalida ilaa 2,000 oo qof baa soo gashay anaa u wada ahaa muddo fara badan markii dambe anaa ka tegey sababa jira awgood marka aada halkaasna waxaan nahay dee himilo in wadankii wax badan loo qabto Soomaali ahaan ma garanaysa marka taa waxaa ka dambeysay dee Mareykan baan ka bacdi ka tegey waxaan u guuray wadamo kaleeto Oman iyo meeshaas soo noqday Mareykan baan kusoo noqday ka bacdi dowladda Puntland ayay noqotay inaad saas soo sheegtay wasiir ka noqdo wasiirka qorsheynta xiriirka caalamiga waxaan u maleynayaa shaqooyin fiican baan halkaa ka qabanay انت سنه واي وصلت اد وصلت مدن علي فتح Puntland sidaan sheegnay wasiir ba ka soo noqotay deegaanada aad ku dhalateed matalaysayna dabcan waayadii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo ka jiray iyo xiisado kala duwan maakhir maxay tahay maakhir waxa weeye waxaan oran karaa waa regionka ama gobolka Soomaalida ugu taariikh dheer marka laga yimaado gobolkii loo yaqaan Ajuuraan Empire-ka marka laga yimaado maakhir waxay ahayd maxaan ku raadaa dhul isxukumayay boqolaal sanadood oo xukunkaas waliba wuxuu gaarsanaa ilaa iyo dhul badan oo maanta Soomaaliya ka mid ah oo aan maakhir laga aqoon xitaa magaca ayuu magacaas ku baahsanaa maxaan ku raadaa xukuumaddaas waxaan ka soo qaadanayaa maxaan ku raadaa example ahaan ama tusaale ahaan maakhir suldaanadii maakhir waxay xukumi jireen Zeylac oo awdal markaa ahayd caasimadii East Africa oo dhan ma aha kaliya dhulka Soomaalida degto East Africa oo dhan caasimadeeda markay ahayd suldaano reer maakhir ah oo maakhir ka tegay ayaa xukumi jiray Soomaalida intooda badan ma yaqaaniin waayo taariikhda jabkay ku siistaan Soomaalida oo nin walba markuu rabo la soo baxaya ma ogtahay taariikhda dhabtahay waxa weeye maakhir waa dhul taariikh iyo hiddo dheer leh oo dadkii ugu horeeyay badmaaxyada maartay ummadda Soomaalida ilaa baray in meelo badan la tago sida looga shaqeysto maartay in la gurto dhulka lubaanta iyo xijiyada iyo iyaga ugu horeeyay wax gurta waxa maartay baamshir u taga meel walba oo ayay ahaayeen marka waa caynka way magacu wuxuu ka yimi waxa u fahmay inaad ka wado boqortooyadii Warsangeli boqortooyay ahayd maakhir boqortooyadaas Soomaalidu aad bay u taqaanaa laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa maakhir ilaa xilliga ma jirin hadda magacan maakhir markaan ka hadlayno kan maakhirka cusub maakhirkan cusub muxuu yahay maakhirka cusub waxa weeye waa kii unba soo laba kacday mid cusub ma jiro marka nuurow maakhir dadka reer maakhir waxay la samaysteen dowladnimo mar la wada bilaabay gobollo ka mid ah dhulka loo yaqaano Puntland 1998 waa isku wada ogol bay ahayd la isku raacsan yahay in dowlad la wada samaysto marka dhibaatooyinka ka jiray dhinaca maakhir waxay ahaayeen dekadii la isqoray ma dhisnayn dekadii la isqoray oo dhisnayn markuu marso tahay doonyo ku soo xirtaan oo baabshir halka ka socdo ka bacdi waxa dhacday in maakhir marka ay Puntland ay degto dhinaca maxaan ku raadaa bari iyo nugaal iyo dhinaca loo yaqaano maxaan ku raahdaa mudug marka dowladda halkaasi ku ekaatay laamiga ka yimaada maxaan ku raahdaa xamar soo mara maxaan ku raahdaa gaalkacyo garoowe qardho ilaa boosaaso ay dowladii dhaafi kari weyday marka dhibaato weyn oo xagga dib u dhaca ayaa waxay ku dhacday dhinacii maakhir marka dadka reer maakhir runtii waa dad dul badan weeye oo sabir badan weeye marka muddo badan bay lahayn bal dowladda aan baxnaanin oo waxbaa hagaagi doono oo maaragtay arrintu
waxbaa isbedeli doona marka waa kasii dartay ka daro dibi dhal ayay noqotay mar walba dowlad walba dowladda ka dambeysa ayaa kasii uga sii daraatay reer maakhir marka reer maakhir waxay soo gaadheen waqti maalinka maanta aanay dowladda puntland wax nafacaada oo dana ugu jirta aanay jirin haddaan example ku siiyo 10 sannadood horteed aniga oo markaa wasiirka puntland ayaa la bilaabay dariiqan la yidhaahdo ceel daahir ceergaabo dariiqaas wuxuu ahaa dariiq aada iyo aada loo daneynayay runtii dariiqa waxaa bilowgiisii waxaa runtii qeyb libaax ka qaatay ganacsato reer puntland oo ilaa mudug ilaa bari inta udhexaysa ka koobnaa iyo reer markaa waxay ku khasbeen dowladdii markaa joogtay in dariiqaa la bilaabo sababtuna waxay ahayd dan baa noogu jirta bay yidhahdeen waayo regionka ama gobolka weyn oo leeyahay sanaag fara nooguma jiro bay yidhahdeen ganacsigiisa iyo sidiisaba maaragtay haddii dariiq ka yimaado burco ama berber burco ilaa ceergaabo yimaado halka annaga waxay yidhahdeen waxaa noogu jirtaa dib u dhac baa noogu jira marka kama maarano waa in dariiqa dowladdii markaa joogtay ayay ku khasbeen inay dariiqaa sameyso marka wax fiican buu ahaa reer maakhir talada waxbay ku lahaayeen aadna ugu soo dhaweeyeen arrintaas in dariiqaas maaragtay la bilaabo dariiq waa la bilaabay anigu markaan joogo wasiir ahaa waxaan usoo helay 4 milyan oo dollar hadda markhaantigiina wuu joogaa waxa weeye waa nin soomaaliya oo ka shaqeeya African Development Bank nin reer awdal weeye weli wuu joogaa 4 milyan oo dollar intaan arrintiiba bilaaban ayaa horta 2 milyan meeshii ka baxeen ma ogtay si kaleeto ayaa loo duway gacan kale gashay markaan ka tegay anigu muddo laba sannadood ku dhawaad markaan ka tegay ayaan niman guddiga ku jira oo reer maakhir waan la hadlo waxaan ku yiri waraadhe 2 milyan baa ku haray meeshii bal waxaad yeelaysaan waxa lagu bilaabo ku fara adayga oo yaan laga saarin meeshii dariiqa si uu u dhamaado waxaa jirtay marka dadka reer puntlandna waxay isku qoreen in caruurta iskuullada ku jirta maxaan ku yiraahdaa laga qaado cashuur dekeda cashuur laga qaado lacag badan baa soo gelaysay dariiqa weli ma dhamaado weli nus xitaa inuu joogo waxaan u malaynaya markii ugu dambeysay wuxuu joogay inuu soo gaaray magaalada maxaan ku yiraahdaa cawsane iyo adigu meel wuxuu joogaa maaragtay indooraa ka harsan dariiqa marka taasaa tusaale ku ah magaalada lasqori deked ma laha puntland intii maxaan ku yirahdaa ay jirtay waxaa jiray infrastructure badan ama kaabayaasha dhaqaalaha oo fara badan baa laga sameeyay puntland aada fara badan dariiqi ha noqoto laamiye ha noqoto wax walba ha noqoto lagama sameyn puntland maakhir waxba lagama sameyn xagga iskuullada aada bay ugu liidataa maaragtay marka ay timaado scholarshipska dibadda loo diro caruurta reer maakhir waxba kama helaan ma garanaysaa haddii xabad iyo laba loogu daro waa bay nasiib leeyihiin marka waxaa ku dhacday nuurow dib u dhac weyn baa ku dhacday maakhir intii ay ku jirtay puntland waa run weeye marka reer saaxiibaday reer puntland markaan la sheekayso dee meesha idinkuba waa timaadeen waxaad u timaadeen waxaad ka soo cararayseen somaliland baa ka baqayseeno ya in laydin protection aad meesha ka heshaan ayaa u timaadeen bay yidhahda ya anagu idinma baahnayn waxbaa ka jira hadalka waxbaa ka jira sababta waxa weeye dagaal baa ku socday maakhir dagaalkaas wuxuu ahaa dagaalkii SLMT iimaanka la ayadoo waaleyd ayaa dagaal ku soo qaaday dad bay ceergaabo ku laayeen hadaaftimay ku laayeen odayaal waxay ku laayeen xingalool meelo badan iyaguna jab weyn baa ku dhacay laakiin dagaal xun baa ay ahaayeen niman dowlad isku sheegaya oo qabiileysan bay ahaayeen ma garanaysaa marka laakiin waxaa jirtay SNM iyo SSDF inay saaxiib ahaayeen isla markaa annaga dagaalka noogu socday
marka waa runtooda de waa protection in la isgarabaysto meesha kama marnayn laakiin aimka ugu weyn taa maahay in dowlad la sameeyo wax la yagleelo wax la isku darsado la isku darsado aimku ah tiina ma shaqeyn marka reer maakhir hadda khalad baa dad badan baa khalad ka fahmay oo waxay moodayaan inay doonayaan inay yani dowlad liddi ku ah Puntland inay sameeyaan ma jirto anigu nimanka odayaasha ahaayo maxaan ku raahdaa jooga wadankii kuwa jooga kuwa raggii xamar ku shiray iyo gabdhihii xamar ku shiray in badan baan la hadlay ma ogtahay ya wax qaba in Puntland iyo maakhir liddi isku noqdaan reer maakhir ma jiraan waxa weeye in reer maakhir ay tashadaan ayahooda ka tashadaan dhaqaalahooda iyo horumarkooda inay iyagu gacantooda ku qabtaan ku horumariyaan biyo gacantooda laga dhigaa in aanay nina u daba fadhiisan cidina u dowladin ayuun bay doonayaan maaha inay way mudane wasiir laakiin marka la fiiriyo taariikhda aad ka soo sheekaysay 1998 waxaad sheegtay in reer Puntland iyo reer maakhir oo beelaha Soomaaliyeed halkaas wada deganay ay maamulka Puntland wada samaysteen ilaa haddana waxaad moodaa weli inkastoo de dhaliilaha aad sheegtay laga yaabo in la taaban karo oo sida hadda wadada ceel daahir oo kale haddana dadka qaar waxay aaminsan yihiin in reer maakhir wax kaga maqan oo saami oo Puntland kaga maqan una jirin wixii saami ay markaa hore lahaayeen ay weli hadda haystaan xilalkii dawladda hadday noqotay iyo haddii ay maaragtay saamigii kale siyaasadeed noqotaba inay maamulka Puntland ay ka yihiin factor adag ka yihiin adigu miyayna ku muuqan midaas nuur waa su-aal fiican weeye runtii waa su-aal mudan in la isweydiiyo laga jawaabo horta anigu markaan wasiirka ahaa haddaanan tegin Puntland anigu marka waxaan noqon lahayd kutaan bay noqon lahayd laakiin anigu meesha waan kasoo shaqeeyey horta dadka Puntland waa dad aad u fiican weeye shacabka reer maakhir shacabka reer Puntland waa dad walaalo ah oo deris ah wax dhibaatay ma jiraan laakiin dowladnimadu si u qorshaysan tahay Soomaaliya maanta ayaa way ciladu meesha ka taagan tahay Puntland kaliya ma aha Soomaaliya dowlad oo dhan ninka madaxda u ah ayaa jab ku wata ama nin xun noqdo ama nin wanaagsan noqdo horta isaga dowladdu wasaga way wixii soo raaca waxa weeye waa wax de ama isaga la jira oo xaqiisa ka agban ama waxa weeye wax mucaarada oo de dagaal lagu la tacaalo marka reer Puntland waxa weeye waa dad maxaan ku raahdaa fiican weeye laakiin dowladdu ma aha dowlad baahsan ma aha sidaa daraaddeed dowlad goboleed u sameeyay ma hadla dowlad goboleed oo dhan baan baahsanayn Soomaaliya ninka madaxda aan baa ka waayeela marka de sabab uu qofkaas maakhir ugu dadaalo oo haddaan maakhir ka soo jeedo wuxuu taro dheeraada sida Soomaalidu u dhaqanto maanta way adkaanaysaa ma ogtahay marka hadda madaxweyne anigu jooga hadda basically mali wax dheeraada oo isaga kii ka horeeyay iyo maaragtay kii kale ka soo horeeyay ma garanaysaa ayaa laga hadlayaa qof nin toosi ma marka dowladdii waa dowlad ku kooban meelo gaar ah wey waxay qabanayso qabadkeedii waa kooban yahay wuxuu ku xadeeyay halkaa marka runtaa way jiraan wasiiro iyo xildhibaano iyo dad ku magacaaban dadkaas meesha horta carruur bay ku korsanayaan mushaar ay ka qaataan waa ku ladan yihiin alxamdulilah dee anigu in duulaan kuma aha nimankaas ya reer maakhir nimankaas meesha laga soo tuuro ma laha iyaga de waa niman meesha jooga oo magacaasi ku joogaan laakiin awooday wax ugu qabtaan ma laha awooday maakhir wax ugu qabtaan meesha ma taalo siday ku yimaadeenna dee ilaahin baa oga dad gacanta lasoo qabtay wey ma ogtahay marka ma aha qofkii inuu qof xun yahay sida systemkii uu ku yimi iyo wadciga markuu yimaado meeshii uu la kulmayo labadaa midna uma suurto gelinayo inuu meeshuu ka yimi wax ka qabto marka waxa saxda la rabo marka ma in
saamigii saxda ah ee Puntland lagu lahaa la helaa mise waa in maakhir ay Puntland ka madax banaanaato oo maamul gooni ah oo iyadu ama dawladda federaalka hoos tagta ama meel kale aada markaas ay noqoto ujeedka rasmiga ah ee maaragtay waxgaradka reer maakhir maanta ay wataan muxuu yahay nur waa su'aal wanaagsan weeye reer maakhir waxay rabaan in ay bal cabatan ma jiro horta meesha nin baa wuxuu yiri nin madaxweyne reer Puntland hadda aan joogin baa wuxuu yiri maalin aniga indhaga ay ku maqlay reer maakhir waa muwaadiniin buu yiri aan shuruud lahayn hadalkaas aad buu dhibay ma ogtahay laakiin anigu maanta kama jawaabin sababta waxa weeye jawaabta anigu ma lahayn ma ogtahay waxa joogay ismadii reer maakhir baa meesha fadhiyay iyagana meesha caasimadu ay u taallay marka waxa weeye waxay u baahan yihiin reer maakhir waxay doonayaan boqolkiiba waxaan isleeyahay 85 maanta waxay rabaan inay iyagu dhaqaalahoodii iyo horumarkoodii inay gacantooda ku samaystaan ana cidna u daba fadhiisan inay garowga tegin meel kale tegin iyagu ay waxooda wataan marka waa su-aashaada waxaa ku jirtay ma gooni isu taag baa ma inay waxoodii la goorgoortabaan Puntland baa ma inay waxa weeye hadda Puntland maxaan ku dhahaa maakhir sida hadda anagu u aragno ama shacabka intooda badni u arkaan waxa weeye inay samaystaan maamul iyagu ay danahooda ku raacdaan developmentkooda horumarkooda ay ku cagbadaan marka waa maamul gaar oo aan Puntland ka tirsanayn cid kalena ka tirsanayn dawladda dhexe toos hoos taga dawladda dhexe hoos taga waxaan 2 sanadood ayay haystaan jaaniskaas 2 sanadood waxay soo gaari karaan meel ay ama cid kaleeto wax la qabsadaan walaalahood maxaan ku raadaa meel kale jooga ama iyagu ay balaarsadaan meeshoodii oo ay dawlad u qalanta state gooni noqdaan 2 sanadood bay u taallaa reer maakhir inay arrintaa kaga jawaabaan way dhawaan muqdisho shir baa ka dhacay waxgaradka iyo haldoorka waxay isugu yimid deegaanada ka soo jeeda adoo ma ka qayb gashay shirkaas anigu shirkaas waan daneynayay hawl baa igu soo korodhay aniga hooyaday baa ku xanuunsanaysa oo waayeela Mareykan markii aan way ma lagu midaysnaa shirkaas ma lagu midaysnaa dadka deegaanadaasi macnaha horta Nuro waa su'aal fiican shir lagu wada midaysan yahay Soomaaliya kama dhaco waxa weeye laakiin dadka reer maakhir sidaan sheegay boqolkiiba ilaa 85 dhalinyarada odayaasha isimada waxgaradka waxay taagan yihiin in ay tahay waqtigii la gaaray maakhir la taagi lahaa maxaan ku idhahdaa maamul ahaan loo taagi lahaa mudane wasiir dadka deegaanadaasi waxay leeyihiin saad horey baad uga soo dhawaajisay saldanadda ugu fac weyn dadka Soomaaliyeed suldaankiina waa joogaa hadda oo waa maaragtay nin maaragtay oday oo muxtaram weeye oo maaragtay aad maaragtay Soomaalidu ay u qadariso isagu taladan reer maakhir maanta ay ku doonayaan inay gooni isugu taagaan oo maamul dawladda dhexe hoos tago oo maakhir state la yiraahdo halka ka soo aroora ay noqdaan suldaanku talada wax ma ka wadaa mise waa dadkii kale haldoorka aan baa hawshan wada waa su'aal wanaagsan Nuur horta anigu suldaanka lama hadlay markii ugu dambeysay suldaanka wada hadalay waxa weeye markaan Puntland joogay ayaan suldaanka dhowrgoor wada hadalay horta suldaanka sidaad ogtahay caadada Soomaalida iyo maaragtay suldaanada warsangeliga waxa weeye tolka ama shacabka beesha meesha degan ama maxaan ku idhaahdaa ayaa talada ay ka soo go'da waxay doonayaan rabitaankooda marka suldaanku wuxuu leeyahay guddoon iyo duco marka suldaanku anigu saan maqlay suldaanku ma aha nin horbooda siyaasadda oo suldaanka suldaan Saciid waa nin maaragtay ku eg xagga dhaqanka de wuxuu riixi karo oo nabadeynta aad buu ugu fiican yahay waa suldaanka waa nin aad u jecel in meesha aan dhibaato ka dhicin nabadda ku dadaala aad buu ugu amaanan yahay
laakiin siyaasadda suldaanku dee maogtay waxaa jirta siyaasadda dadkaa soo karkaraya shacabka marka shacabkiisu waxay isku raacsan yihiin suldaanku dee nin diidaya ma aha in haddana ma maqal inuu kasoo horjeedo dee sabab uga soo horjeedana maba dhici karto oo dadkooda dadka shacabka reer maakhir waxay rabaan ayuu sulaankuna ku suntan yahay way dhowaan magaalada Badhan waxaa ka dhacay shaqaqooyin ay dad ku dhinteen Allah u naxariisto dhalinyaro halka ku dhintay wafdi baa tagay nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Dhowr oo madax u yahay muxuu yahay Cabdiraxmaan Dhowr aniga Cabdiraxmaan Dhowr aan halkan ku kulmay Nairobi hore Soomaaliya aqoon waxaan ka arkay nin firfircoon oo dhalinyaro ah oo raba inuu maartay موجودة صوته أو ماخر إنه الماخر اللي تاعه إنه قريب اللي واحد قاطه كقريب قبله أيانا أركي موقته أنا أقول مارتي أقوم ديراد اللي هي فنتي أرنتن شركة وعضية شركة كقريب قبله أيوة كم يضحى جدي أنا وأستاذ شركتي جرمان بويها جدي مركب منن أيام ماخر درسين بقى مسوانين يسوي صدري horta wadagta nuuro Soomaali waxa nin la dirsado hadda waskiyeeyay dadku iyaga istirsa marka laakiin tubta uu ku taagan yahay maakhir inuu maakhir u ololayo de wax ma aha maartay cid ku diidani iyaga gardaran ma ogtahay marka haddaan soo noqdo su'aashaadii dad arrinta ka dhawaajiso meesha shaqaaqa ka dhacday ilaahu naxariistay wiilna ku dhintay dadna ku dhaawacmeen arintaasu waa arrin aad u fulxun bay ahayd nasiib darraa xagga maakhir kama iman arrintaas dhinaca maakhir kama iman dadkii dagaalka ay bilaabay rabshada bilaabay waxay ahayn dad mushaara ka qaata dowladda Puntland bay ahayd koor waliba waxa ka sii daraa oo nasiib darra aad u weyn ninka hadda madaxweyne ku magacaaban madaxweynaha Puntland oo loo yaqaano lafagure iyo lafatuur aniga magaciisa runtii ma aqaan madaxweyne ku-xigeenka dowladda jeeda madaxweyne ku-xigeenka lugator miyaa lugatorkaas oo nin aad afdheer weeye deelqaafyo badan baa afkiisa ka soo baxay marka anigu markaan dad weydiiyaan war lugator xaguuna ka yimi maxaa inagii lugator ina dhex yaala waxay dad tuuladiisii maxaan ku raahdaa uma warayo ma waqti tuuladiisii waxa weeye waxay ka tirsan tahay meesha la yiraahdo Khaatumo marka nin reer Khaatumo ah oo Puntland ka shaqeeya inuu maakhir la gaadeeyo waa nasiib darro weey waxa ka sii daraa mid sano lagu magacaabay wasiirka warfaafinta ninkaasuna si aan sax ahayn oo aflagaada ayuu uga hadlay Maxamed Cadiid wala jeeda Cadiid meel ninkaas saas oo hadlay marka nimanka xanuun lahaa war idinku horta xagaad ku ogteen tuulooyinka ka timaadeen ya ma Puntland ba Khaatumo ya bal horta soo saxa inteedna reer maakhir aflagaadeen xanuun lahaa dadka ay ka soo jeedaan in nimanka la taliyaan ay yiraahdaan war haddii wax lagu sheego waxna waa la gartaa marka dad kale wuxuu soo sheegay baad leedahay tee waxa ma leeyahay in iyagoo fikiraya oo aqal saliim ku hadlaya in arrimaha ku hadlayaan labadan nin isku deegaan bay ka soo jeedaan soo labadan nin isku deegaankaasi waxay ka soo jeedaan Sool marka reer Sool iyo reer Maakhirna wax dhibaato ah uma dhaxayaan maanta marka in reer Sool nimanka Allah hadlo macnaha midna wasiir si hadalkaagu cadaado maxaad leedahay labada nin baa ka dambeeyay u jeedaa shaqada ka dhacday mise media hadal ka sheegeen badan iyaga wala soo mariyay hadalka aan soo arko way iyaga maartay they don't have what they say dog in the fight man yeah iyaga shaqa u taalo ma hawl iyagu meel ka soo gali karaan ma iyagu waa reer Sool way laakiin maamulkii Puntland bay madax ka yihiin maamulkii Puntland bay ku tirsan yihiin hadda macnaha madax bay ka yihiin soo ya madax bay ka yihiin waxayna aaminsan yihiin dhulkan aan ka hadlayno in iyagu madax u yihiin laakiin sheekh Nuuro
أنا waxaan leeyahay iyagu waxay ka soo jeedaan sool hay khaatimay ka soo jeedaan hay halkan say u joogaan anigu dee si faalayn maayo hay laakiin iyagoo niman reer sool weeye hay reer sool khaatimo iyo maakhirna wax dhibaato ah oo dhex taalla ma jirto walaalnimo dhex taalla waa hagaag waa mahadsan tahay mudane wasiir reer maakhir saad sheegtay gobolka sanaag iyo highland oo maaragtay iyadana qaybka goboladaas bay hadda dadkaas beelahaas inta ugu badan degaan sanaag waxay ka mid tahay 18 gobol ee hore Soomaaliya ayay ka mid tahay inkastoo highland aan qiyaasaya inay goboladii gadaal ka yimid tahay sanaag iyo sool SSC Khaatumo magaca ay wadato waa SSC Khaatumo SSC daasi waa sool sanaag iyo cayn Soomaal gobolada ay tirsanayaan ee magacan uu ku jiray sanaag ka mid tahay in reer sanaag ama maakhir ha wataan ama magac kale ha wataan iyagoo beesha halkaa degana oo dadka deegaanka degana oo iska leh iyo dadka degan sool in ay wax wada qaybsadaan oo iyagoo hal maamul isla noqdaan maadaama oo sool ay iska maaragtay saareen maamulkii Soomaaliland ay inta badan haystay iyaguna hadda maamul gaar ah ay ku dhawaaqdeen maamulkaas iyo maakhir state inay wax wada qaybsadaan oo hal maamul halkaas ka soo baxo oo magac weynna wata isku tashi iyo bulsho ballaaran ku fadhiya arrintaas aad aragtaa adigu arrintaas horta waa arrin runtii maaragtay arrin waxa weeye u baahan in la istidhi karayo ama la daraasad u baahan ma ogtahay dhibaatadooda waxa weeye siyaasadooda Soomaalida waa igu soo bood weeye dad baa caatibad intay iskala kacaan oranaya halkaasaan u dareernay ma ogtahay laakiin waxay u baahan tahay in la faguro weeye runtii wax badan baa reer khaatimo iyo maxaan ku radaa iyo reer maakhir ay isku darsan karaan way aad bay isugu wanaagsan yihiin inay maaragtay isku darsadaan waa laba region oo complementarity ka dhexeeya maaragtay iskaabi kara maaragtay hadday isku beeraan wax fiican soo saari kara hase yeeshee waxa weeye horta in wixii dee loo faguro weeye waa in dad khubaro ah oo labada qolo ka socda labada group ka socda isu yimaadaan maxaa la isku darsanayaa sida la isku darsanayaa maxay yani wixii la qaaxo weeye marka wax dhibaato ku jirta ma jirto wanaag bay noqon kartaa laakiin waa in loo diyaar garoobo weeye marka maakhir maxaan ku radaa khaatimo SSC meeted de meel bay soo gaarsiiyeen halganna way soo galeen halgankii maxaan ku rahdaa reer maakhir qayb libaax bay ka qaateen waa sax weey waana wax ay xaq loogu lahaa weeye oo maaragtay waajib bay guteen marka in la isu yimaado fiican tahay laakiin wixii waa in si maaragtay daraasad ku dheehan tahay oo lagu qanci karo oo xalili karta wixii mushkilad iman karta wixii manaafacaad la heli karo waxaas oo dhan maaragtay qaaxi karta waa in la sameeyo taas ka horeysa okay waa hagaag bas wanaagsan aad baa maasanta wixii tala bal ku aadan maakhir waa ku seen doona aan ka gudbo Soomaaliya dawladda dhexe xaggeeda haddaan aadno iyo dawlad goboleedyadaba guud ahaan siyaasadda Soomaaliya maanta ay dawladda jirta ku hagayso sabab aragtaa mudane wasiir wallahi labaan kala qaybinaya xagga siyaasadda dibadda runtii dawladda maanta joogta aad bay waxyaalo guul badan ka soo hoysay guulo badan ta ugu weyn waxa weeye markii ay damacii guracnaa Ethiopia ninka la yiraahdo Abiy Ahmed uu damcay inuu dhul Soomaaliyeed qaato oo ninkan hadda meesha laga tuuri doono oo la yiraahdo biixi oo heshiiska la galay inkasta oo dadku waxyaalo badan sheegaan haddana waxay ahayd wax weyn oo Soomaalida dhaawac ku keenaysa ummadda Soomaali ahaan oo dhan dhaawac ku keenaysa ay ahayd arrintaas sutida ay qabteen dawladdu way guul bay ka gaareen wax fiican weeye lagu amaani karo weeye mushkiladda Soomaaliya maanta ka taagan waxa weeye dawlad goboleedyadii iyo dawladdii dhexe ayaa waxaa dhex taagan iskarnashuga taas waxay u baahan tahay in la xalilo moogta in la isu tanaasulo
tanaasulka tanaasulka u horeeya horta in la wada hadlo wey in la wada hadlo oo meeshii la faguro arrintu say tahay oo la helo xal u cuntama ummadda Soomaalida ah yani meeshii lama rabo qof inuu maaragtay yiraahdo aniga ninkan ka xanaaqsane ama labada nin baa wax isku haya ya halka halala kala safto ummadda Soomaalida ma qabato waxaas way Puntland iyo dawladda dhexe sidii Xasan uu yimid ba 2 sano iyo bar ka hor khilaaf baa ka dhex taagnaa ilaa haddana khilaafku uu taagan yahay ilaa heer madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni uu isaga tagay xamar oo san dib ugu soo laabanay madax xisbi madasha aan idhaahdo golaha wada tashiga qaran dhowr jeer buu dhacay kulankiisu kulamadana kamuna soo qayb galay khilaaf buu uga maqnaa haddana waxaad moodaa kulankii ugu dambeeyay isagana fashil buu kusoo dhamaaday kadib markii la sheegay madaxweynaha Jubbaland in isaguna uu isaga baxay kulankii oo uu isaga tagay wali marka halkaas ay baashu taagan tahay waxa la isku haystay ugu weyn waa arrimaha doorashooyinka la leeyahay hadda marka laga yimaado khilaafkii hore Puntland iyo dawladda dhexe ka dhaxeeyay bal adoo taa Puntland iyo tan hadda timidba qeexaya say wax kula muuqda wallahi horta waxa runta laga muuqdo moogta dawladdii ka horeysay dawladda oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aniga aad ila wanaagsan qof waxaan labada nin oo lugta jiiday waxa ahayn Deni iyo Axmed Madow waa sax labada nin oo isaga la qabiila maxaa la yiraahdaa isku macnaha isku beel yihiin ayay ahayn labada nin oo dhulka dawladdaas horta fashiliyay marka hadday tan sidii kale ku dhacdo waxaan malaynayaa waa soo yaal baa jiray moogta soo yaal horaa jiray marka adigu waxaad aad u aragtaa in ay leeyihiin Axmed iyo Deni anigu runtii aad waxaan ku saarayaa iyaga mid kaliya ku saaraya inay shirka yimaadaan warankooda ciidda gashadaan oo halkaa ka dacwayaan ya haddii marka la isku afgaran waayo ya laakiin inaan maaragtay shirka tagin aniga waxaan malaynayaa wax fiican ma ya iyo Axmed markuu ka baxay Axmed wuu yimi laakiin uu ka baxay laakiin Deni ma tagin ma tagin moogta marka goobta lagu wada hadlayo in la jooga fiican ka bacdina haddii la isku afgaran waayo dabcan waad ka tagaysaa moogta okay hada shirkan u dambeeyay marka sababaha uu u burburay waxa aragtay ama ka haysataa in la isku fahmi waayo doodaha soo baxay waxay ahaayeen in Axmed uu diiday in doorashadii dib loo dhigo in Puntland iyo Khaatuma maqnaadaan waxyaabo la tilmaamay noocaas oo kale ah Xasan iyo dawladda dhexe iyadana waxa la tilmaamay inay rabeen in doorasho qof iyo cod ay qabtaan maaragtay Puntland hadda iyadoo maqan tahay iman weyda aan loo joojinin maaragtay dalka doorasho qof iyo cod la gaarsiiyo aragtiyaha istiidana horta waxyaalo badan oo khalad miiska waa la soo dhigi karaa moogtay waxa ka mid ah qof iyo cod xaga laga qaaday xamar baan laga qaadi karaa qof iyo cod meel laga qaadi karo Soomaaliya qof iyo cod ma jirto marka Axmed iyo Deni hadday yiraahdaan qof iyo cod ma shaqeynayso taasi waa sax yihiin moogtay laakiin anigu tan leeyahay in miiska yimaadaan oo ka sheegan oo yiraahdaan taas ma soconaysa wax kale keena waa inay miiska kaga doodaan laakiin qof iyo cod wax la yiraahdo maanta Soomaaliya kama shaqeynayso waa hagaag aad baa mahadsantahay ugu dambeyn maxaa taloo soo jeedinaysaa qadiyadda maakhir markaan ka hadlayna iyo Puntland aad baa mahadsantahay Nuur horta fursadan waxaan soo jeedinayaa horta anigu waxaan la hadlayaa walaalahiga reer Puntland horta intaan reer maakhir la hadlay waxaan oran lahaa maakhir haddii cagaheeda isku taagto dee wax usoo kordhay weeye Puntland wax ka dhacay ma jirto ya ma garanaysaa marka hadda nin gabartiisa baa la yiri waxa ku soo kordhay sanin loo maxaa la yiraahdaa wiila soo dooga tahay laakiin gabadhaadii meel ma aha marka af Soomaaliga runtii maaha in dhex galo maaha marka Nuurow reer Puntland waxaan oran lahaa haddii Puntland maakhir istaagto dee waa meel waa gurigaagii labaad oo kaleeto
ya meel lagaa leeyahay oo shacabku waa shacab walaala moogta laysu socdo bacmushtariga cashuuraha laysla bixiyo xitaa security apparatuska laga wada hadlo waxaas waa wax dhici kara weeye oo wanaagsan marka dowlad laba dowladood isku liddi ah anigu maba arko ma ogtahay waxaan arkaa laba walaala kala danaysanaya ayaan anigu u arkaa ma ogtahay marka waxaan lahaa reer Puntland inay sabooraan maakhir oo isdaba taagaan isgarab taagaan oo si maakhir usoo gasho saaxadda waxyaalaha hadda la sheegayo waxaa ka mid ah agreementka ama lala soo galay maxaan ku irahdaa meesha la yiraahdo boosaaso iyo dowladda Cimaaraadka waxaa ku taala in la sqoray oo kale iyo dhulka u dhow boosaaso intaas oo meel u jirta in dekad laga sameyn karo waa khalad cid u diidi karta reer maakhir ma jirto laakiin haddii dekadaas u timaado sida tagaaracad u timi ama dekada kala yimaadaan xeelaayo timaado ama ay caloola laga sameeyo dee wax wanaagsan oo soo kordha weeye maaha wax dhibaato ku ah reer waxa weeye wixii xagga horumarkana waxaa jira principles baa jira la raaco haddii dhulkaas soo dhami wada camirmaan populationkuna waa sii badanaya khayraadkuna waa sii badanaya aad baa mahadsantahay waa ku mahad celinaya mudan wasiir hagaag intaasaan kusoo gabagabeynayaa waraysigan gaarkeen la lahaa wasiirkii hore ee qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee dowlad goboleedka Puntland mudan Cali Faatax waan kula kulmay magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya intaan markale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo